ikhwaani waxaan rabaa inaan idhaahdo 3 saacadood yaynan ina dhaafin insha allahu tacaala qofkii awoodow 3 ducana yayna ku dhaafin sujuudda inaad ku ducaysato 3 saacadood intaan ramadaanka ku jirno bay qayb aad muhiim u sii tahay waxa weeye cinda aliftaar markaad afurayso dadku hadal iyo sheeko kale lagu mashquulaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bari oo gacmaha hoos dhigo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam qofka sooman wuxuu leeyahay duco marka uu afurayo oo mustajaabo ah oo ilaahay ka yeelayo waa 1 2 aakhir alleyl habeenka gelinkiisa dambe inta aan salaada subax la gaadhin iyadana allah baa soo dega subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ma jiraa qof ee wax i weydiisanayo oon siiyo qof istikfaar iyo dembi dhaaf i warsanayo oon u dembi dhaafaa marka istikfaartuna yayna ku dhaafin ilaahay dembi dhaaf xilligaa weydiisto dadka ku tukada masaajidka salaada subax soo gaadha haddiiba jaanis loo helo iyadana waxaa fiican ilaa qoraxdu ay kaga soo baxayso ruuxu meeshuu ku tukaday inuu sii fadhiyo iyaduna waa cumra iyo xaj taama ajirkooda ayaa qofkaa lagu siinayaa 3 duco een raba inaan dardaarmo asheekh ibnu baas raximahullah baana aad runtii u baraarujiyo oo u dardaarmaa 3 adciya 3 duco ha halmaamina buu yidhaahdaa inaad sujuudda ilaahay ku baridaa midda koowaad waxaa weeye ilaahay inaad weydiisato xusna alkhaatima allaahuma innii as'aluka xusna alkhaatima allaahuma innii as'aluka xusna alkhaatima waa 1 ducada labaadna inaad ilaahay weydiisato allaahuma arzuqnii tawbatan nasuuxan qabla almowt allaahuma arzuqnii tawbatan nasuuxan qabla almowt taasna waa midda labaad ta saddexaad waa ducadii rasuulku ku celcelin jiray allaahuma yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik allaahuma yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik aan hal mar ku soo celiya ducadii اللهم ارزقني توبة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهاميو أو الله إنها ليشيو أو الله إن كرسيو إن الإلهي كوي ديسن السجود أو وقتك إلهي سبحانه وتعالى وبدأ أوقفك لك أجيبها دعاء أكجره جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم